toddoba caado dadka tayada badan ay sameeyaan. Assalaamu calaykum, soo dhawow. Muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa toddoba caado anagoo soo xiganayna buugga la yiraahdo 7 Habits of Highly Effective People oo qoray Stephen Covey, nin la yiraahdo Amerikaan ah. ninkaas oo ku caan ah qoridda buugaagta horumarinta nafta. Waxaan sii gudagalaynaa tirinta caadooyinkaas. Caadada koobaad waa be proactive. Ha sugi noloshaada inay ayada iskeeda u toosto. tilaabo qaad. Mas-uuliyadda naftaadan waxaa loo baahan yahay inaad doodka u ridato bedelkaad ku eedayn lahayd dadka kale ama xaaladaha waxyaabaha ku haysto, sida inaad tiraahdo hebel ama heblaayo haddaynan ahayn waxaan iguma dhaceen ama wakhtigaa halkaan idhigay oo kale. Dadka proactive-ka ah wixii ay wax ka qaban karaan ayay diiradda saaraan, wixii kalena way iska iloobaan. Tusaale, qofka proactive-ka ah markuu arko inuu roob soo socdo oo kale, alaabtiisa ayuu gudaha kusoo xaraystaa. Halka qofka reactive-ka ah marka roobka uu bilowdo markaasuu orod uu galo, kadibna calaacal iyo inuu eedeeyo roobkii ama xaaladihii wixii ku dhacay oo kale. Marka qofka proactive-ka ah wuxuu sameeyaa laba shay: inuu ka hortago dhibaatooyinka ama howlaha. Tusaale ahaan, printerka oo kale marka qadkiisu uu rabo inuu dhammaado, inuu soo bedelo hadhow markii uu u baahdo si fudud uu u helo. mideeda kalena wixii wax uu ka qaban karo kaliya ayuu wax ka qabtaa, maahane wixii aanan wax ka qaban karin kama walwalo. marka proactive-ka waa sidaas. caadada labaad waa begin with the end in mind. bilow adigoo dhammaadka iyo natiijada ay ku muuqato. qoraaga wuxuu leeyahay sawiro tacsidaada maalinta aad geeriyooto. maxaad jeceshahay dadka inay kugu xasuustaan guulaha aad gaartay iyo sida aad noloshooda u bedeshay. marka natiijada hadday kuu muuqato, wax walboo maalin walba aad samaysid waxay kuu sii dhoweynayaan hadafkii iyo natiijadaas aad markii horeba maskaxda aad ku haysay. caadada saddexaad waxay ku leedahay put the first thing first. ku hormar midka ugu horeeyo. haddii Soomaali ahaan aan ka dhigno, waxaa jirta su'aal qoraaga uu ku bilaabay qodobkan. wuxuu yidhi, maxay tahay hal shay oo aad samayn kari lahayd oo aadan hadda samaynaynin laakiin noloshaada dhanka wanaagsan u bedeli lahaa? waa su'aal fiican, sababtoo ah shaygaas oo kale waa kuu muhiim, waxaana la rabaa inaad ka soo hormariso waxyaabaha kale. nolosha waxaa ka buuxa waxyaabo badan oo ku mashquuliya, kuwaasoo kugu sababaya mararka qaar inaad ka hormariso wixii muhiimka ahaa oo naftaada wax ka bedeli lahaa oo noloshaada aad muhiimku ah waxaana muhiim ahayn. caadada afaraad waxay ku leedahay think win-win. ku fakar labadiinaba inaad guulaysataan. qasab maaha nolosha inay noqoto tartan iyo isbarbardhig. xitaa mararka qaar isbarbardhigga waxaa ka imaan kara xasad iyo xiqdi oo loo qaado qofkii kale. marka ma fiicna habfikirka ah adiga waa inaad guul daraysataa si aniga aan u guulaysto. guusha qof walba boos ayaa uga bannaan. tusaale ahaan, markaad suuqa soo aadid oo aad rabtid shaati oo kale inaad soo gadatid, qofkii shaatiga gadayay markaad la gorgortamayso waxaan rabaa in dhinaciisa oo kale aad ka soo eegtid. keligaaga inaad diil fiican soo heshido qofkii aad gaadid lama rabee. waxaa la rabaa inaad ku fikirta fikirka ah marka win-win markay tahay. waxaad ku fikiraysaa aniga waxaan rabaa wax raqiis ah oo jeebkayga culeys badan aan soo saaraynin. qofkan kalena qoraxdan wuxuu u taagan yahay inuu faa'iido ka sameeyo. marka labadeenaba waa inaad guulaysanaa. caadada shanaad waxay ku leedahay seek first to understand then to be understood. raadi marka hore inaad fahantid qofka kale, kadib raadi in adiga lagu fahmo. dhegaysigu waa qodob aad muhiim u ah wada xiriirkeena. inta badan waxaa dhacda inaan isku dhegaysano si aan iskugu jawaabno. yacni qofka marka uu sheekaynayo waxaad already ka fekeraysaa wixii aad dhihi lahayd iyo jawaabihii aad dhihi lahayd adigoo si fiican u dhuuxin wixii uu kuu sheegay. marka waxaana lagu fahmaa qofka inaad si fiican u dhegaysatay in summarize ama aad ku samaysid soo koobid wixii uu kuu sheegay ama su'aal aad ka keentid. marka aad ayay muhiim u tahay qofka inaad fahantid marka hore in adiga lagu fahmi. caadada lixaad waa synergy. synergy waa wada shaqayn iyo iskaalmeyn si guusha loo wada gaaro. Soomaali hore waxay u tiri far kaliya fool ma dhaqdo. caadadan waxay la xiriirtaa tan afaraad, think win-win. tusaale, kubadda cagta oo kale, tiimkaas oo kubadda cagta dheelaya
keligood inay isla tartamaan qofba qofkii kale uu xaqdii u qaado ayagoo isku tiim ah waxaa ka wanaagsan inay isla wada shaqeeyaan hadafkoodana waa mid haddii gool dhaliyana waa isla badiyeen marka wada shaqayntaas iyo in midkeenba guusheeda ay tahay oo aan layskala reebin ayay muujinaysaa caadada toddobaad iyo midda ugu dambaysa waa sharpen the saw afay mishaarta weligaa isdhihi meeshii aan rabay waan soo gaaray hadafkii iskuulkii waa ii soo dhammaaday ama wax walba meeshii ugu saraysaan joogaa marka horumarin iyo uma baani inaan ka sii shaqeeyo haddii sidaasaa iska dhaadhicisid sida tiknolojiyada oo kale caalamka maalinta ka dambaysa culumta maadiga waa isi sii taraysaa sidoo kale jirkaaga markaad dhisato inaad tiraahdid jirkii wuu ii dhismay haatan wixii ka dambeeyo ma jimicsan doono haddaad tiraahdid wixii way iskaaga dhacayaan marka waxaa loo baahan yahay mar walba inaad mashaartaada sii afaysato horumarinta boos waa kaaga baahnaayahay mar walba xilli walboo la joogo waad u baahan tahay waad ku mahadsan tahay muuqaalkii la dhammaadka haddaad soo gaartay muuqaalada sidan oo kale ah oo buugaagta iyo aan kaga hadlayno haddii aad ka heshay subscribe noo saar soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu